misuu ooyay nabigeena alayhi salaatu wasalaam ummadiisa u ooyay oo naxariista ilaahay u weydiiyey yani safar bay ahaayeen markaasuu ka leexday markaasuu gacanta kor u taagay oo in badan ilaahay baryay markaasuu sujuuday markaasuu haddana soo noqday sujuudi ka kacay markaasuu haddana in badan duceeyay saddex goor ayaa mar walba uu sujuudayaa haddana waa ducaynhayaa maxaad saa u yeeshay baa leeyahay rasuulullah wuxuu yidhi inii shafactu liummati dacawtu allah wa shafactu liummati ummaddaydaan u shafeeco qaadayo ilaahay markii hore wuxuu isiiyey thuluth ummaddii saddex meelood buu ka dhigo thuluth baad leedahay baa ligu yidhi buu yidhi markaasaan sujuud ilaahay u sujuuday shukran lilaahi inuu thuluth isiiyey haddana waa markii uu ka soo kacay nabiga alayh isalaatu wasalaam wuxuu yihi yaa rabbi naxariistaadu waa badan tahay igu dar haddana thuluthkii kale isii waa duceey in badan buu gacanta kor u taagay markaas haddana thuluthkii labaadna waa lagu siiyey markaasuu sajada khara saajidan lilah markaasuu in badan haddana sujuudsana markuu kacay hal thulutho ugu dambeeya jira moogtahay kiina waa ka hari waay wuxuu yihi ilaah igu dar kaana igu dar waxaa la yidhaha culamadu marka waa saddexda thuluth ay ummaddu u kala qaybsantahay suurat Faatir ku yimid faminhum muqtasidun faminhum dhalimun linafsihi wa thuluth ظالم لنفسها معاصي ذنوب له ومنهم مقتصد من اسكت حاله ومنهم سابق بالخيرات سدح ذيب الى هو كاقبل شفاعه النبي عليه الصلاه والسلام من النبي ان سداس سو ان جعلنا ما سو ان سنتي سجعلنا ما سو ان سلي سبدنا ما ورسل نبينا صلى الله عليه واله وسلم خير خلق الله وها رسول رب العالمين وها قلب واسع والرحيم ما إلهي ويالي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بركديسة بركة دعاديسة بانو كنا الله بري هرا لنا بابين الله هذا درون دوني وش والله الذي لا إله إلا ومدن بري هرا أيها لا تقلها لكن هو بري وحير إلهي ومدى إذا ومديس هذا كله وسوق لها معلش ويدنتين كل شيء وسوق لها لأن أمة دعوة إلهي وحو كبري إلهي ومدى إذا عذاب عوا حقو قادم عذاب عامة ومركي لي بابي سيدي أمدي وكره إلهي وكا أقبل سبحانه جل جلاله مركا إمي سوء نبينا عليه الصلاة والسلام أمدي سوء ونحريست إلهي ويدي يعني سفر بأحايا مركاسو كاللحظة مركاسو قعنت معه كروق أتاقي وإن بدن إلهي بري مركاسو سجودي مركاسو هدانا سون نقضي سجودي ككعي مركاسو هدانا إن بدن دعي صدح قول ayaa mar walba uu sujuudayaa haddana waa ducaynhayaa maxaad saa u yeeshay baa leeyahay rasuulullah wuxuu yidhi inii shafactu liummati dacawtu allah wa shafactu liummati ummaddaydaan u shafeeco qaadayo ilaahay markii hore wuxuu isiiyey thuluth ummaddii saddex meelood buu ka dhigo thuluth baad leedahay baa ligu yidhi buu yidhi markaasaan sujuud ilaahay u sujuuday shukran lilaahi inuu thuluth isiiyey haddana waa markii uu ka soo kacay nabiga alayh isalaatu wasalaam wuxuu yihi yaa rabbi naxariistaadu waa badan tahay igu dar haddana thuluthkii kale isii waa duceey in badan buu gacanta kor u taagay markaas haddana thuluthkii labaadna waa lagu siiyey markaasuu sajada khara saajidan lilah markaasuu in badan haddana sujuudsana markuu kacay hal thulutho ugu dambeeya jira moogtahay kiina waa ka hari waay wuxuu yihi ilaah igu dar kaana igu dar waxaa la yidhaha culamadu marka waa saddexda thuluth ay ummaddu u kala qaybsantahay suurat Faatir ku yimid faminhum muqtasidun فمنهم ظالم لنفسه وثلث ظالم لنفسها معاصي ذنوب له ومنهم مقتصد من اسكت حاله ومنهم سابق بالخيرات سدح ذيب إلهي وكا أقبل شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام من النبي أن سداس سو إنا جعلنا ما سو إنا سنتي سجعلنا ما سو إنا سلي سبدنا ما ورسل النبي عليه الصلاة والسلام قفكي الله وافجي وإلهي سي الله أكبر تقضى حاجته حديث النبي كوي مدو صحيح وحول إنك صحابيها يا رسول الله وحن بديها صلي هذا لكن أوراد كلي أذكار كرنا والله هاي إمسان كديها ملبا ميلود ميل بان كديها صلي هذا دوني سها إن أتكبد سنة وكاغا في عندي هذا بصدح ميلود لبا ميل صلي أن كديو أنت كلنا wuxuu yidhi haddaad doonto haddaad ka badisaa kaaga fiican salligaygo dhan iyo ducadaydo dhan salligaaga unma ka dhigaa muxuu nabigu ku jawaab marka idan haddaad saa yeegsho yukfa hamuk wayukfar dambuk
hamiga iyo murugada ku haysata adduunka oo dhan waa laga kaafin aakhirana dambi dhaafna waa lagu sheegay labaduna waa labada mushkilo ee insaanka haysta adduunkana hami baa haysta aakhirana dambi baa haysta labadaba haddii lagaa cafiyo ka war maxaanaad ku heshay waxaad ku heshay salliga nabigood badaysay kolka ninkay arrimo isu qaban la-dahay ee wax ka kala halaysan yihiin muu arrimahaas cuskado arrimaha nabiga noo tilmaamo saadiq almasduuq muu cuskado intuu meelaha galablaynayo hebel ifiiri waxaan ifiiri dad kale makhluuq maskiina oo waxba haysanin uu daba ordaayo ilahay acmaashan saalixada buu ku siiyey xaajadaadana aad ku gudan yaqiinna aad ku helayso yani faa'iidada ay leedahay waa maxay ilahay baabad ku baranba subxaanahu jala jalaaluhu